السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقاعد عبد الرحمن halkaad iga daawanaysid waa abna official. fadlan jalanka haddii aad ku cusubtahay subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga. muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa wax loo yaqaan muuqaaladan iyo muuqaalada xiga waxaan uga hadlaynaa wax loo yaqaan passive income. passive income haddii aan af Soomaali ahaan ku qeexno waa inaan samaysaa dhowr dakhli oo kala duwan oo dhowr meel ka soo kala galay. يعني إن هذا كتير سرارين الدخل حل ملكاس وقلاي سيد مشاركة أما قلنا هذا يعني وحابة أنت إن سميسو الدخل مال بدن كاك سو قلاي سيدي أتوسمي كرتا passive income وحنوه هالنا إلا يو دور خطوة أو dariiqooyin fudud sahlan fudud hadii adiga si saxan aad u martid oo si saxan aad u qabtid aad ku sameyn karto dakhli fiican step by step bar u galena maalinbo ama waqti walbo waxa soo galena hal muuqaal aan uga hadlayno yani taxana ahaan aan uga hadlayno passive income dhowrka nooc aad u sameyn kartid dakhli muuqaalka koowaad maanta waxa kaga hadlaynaa wax loo yaqaan blogging in badan inaa maqashay way dhici kartaa blogging haddii aad horay u maqashay oo aadan garanayn macnaheedu hadda ogaw sidoo kale haddii aad maqashay laakiin aadan wili ku dhaqaaqin isku day in hadda aad ku dhaqaaqdid walla waxaan ka codsanayaa channelka inaad subscribe asaartid si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga haddaba aan ka hadalno wax loo yaqaan blogging waa maxay blogging waa inaad leedahay website kaasoo adiga ku soo bandhigaysid fikradahaaga ka soo qaad waxa leedahay website magaciisu yahay abdirahman.com website kaas waxa ku soo qortaa wax allaale wixii adiga xiiseynaysid haday tahay barnaamijyada ganacsiga barnaamijyada dhaqaalaha barnaamijyada caafimaadka barnaamijka is leedahay ayaad ku soo daabacaysaa aad ku soo qoraysaa okay qof baa marka soo booqanayo ciwaanku ka soo qaat maanta adiga markaad google-ga aad gashid oo aad ku qortid what is economic waa maxay dhaqaale wuxuu ku soo saarayaa dhowr website baa ku dhafatay waxa akristay maqaal oo ku dhahaya economic dhaqaale waa sidaas dhowrkaas nooc u kala baxaa sidaas buu ku yimaadaa yani warbixin dhammaystiran يعني أسوء أخرستي وربحنتاس دمسترن أديك أسوء أخرستي قفبا ماشي كسر ضاوعي أوكي قفبا ماشي كسر ضاوعي إنات مقالات كسر قرتيت ويب سايت أي واحد له يقانا بلوجن أما هاتو فكرتها بواق وح الله له وحي نقطة مركز أديك كسر بدكتيت تاس أي له يقانا بلوجن هذا سؤال شو حتى سيدي أنا أقول سمي كرا بلوجين لعك أنت سوقف أي معروف والبكسة مسا بلوجين كلعك وأنا متأت وفوت وسهلا هدي سيسحن أتمرتد مركي ويب سايت كاغو نقضو يعني أفر شامبل لحبل أو مدة سنة activation كيسو معناه نظام كيسو صحيح هاي oo si degan oo barnaamij saxan oo kugu socdo bilooyin gudahood 2 bil hal bil gudahood 3 bil nasiibkaagii hadaba ayaa suurtagal ay tahay inaad lacag ka samaysid qaabka lacag ugu sameynaysid waxa waaye waa inaad u furtaa wax loo yaqaan Google AdSense waa maxay Google AdSense waa inaad Google aad ka codsataa in shirkadaha lacagaha bixinaya ee doonaya xayeysiinta sida in loo xayeysiyo ganacsigooda applicationadooda wax allaale wixii doonaya in loo xayeysiyo in website-kaada uu ku soo bandhigo maxaa dhacay markii aan website-kayga loogu soo bandhigo oo Google iga ogolaado in website yani xayeysiinadaas website-kayga ku soo bandhigo ka soo qaad faaraxa maanta website-kaada soo galay website-kaada adiga waxa ku soo daawacday article ku soo daawacday faarax asigoo article-kii akhrisanayay ayuu dhinac wuxuu ku arkay xayeysiin application-kan soo degso wuxuu ka saacidayaa inaad dokumentiyada aad ku xafido faarax wuxuu sameynayaa application-kii xayeysiinka dhinac ka muuqday oo ad ay ku qorneed ayuu ku dhufanayaa markii uu ku dhufsado
يعني wuxuu arkayaa barnaamijka soo adi mar allaala markii uu faara xayisiintaas ku dhigto adigi waxaad helaysaa lacag ayaad ku helaysaa $1 $2 $3 ka soo qaad marka maalintii website-kaadi meeq qof ayaa soo booqan karta aan dhahno intaasoo qof 100 qof oo website-kaada maalintii soo booqatay ama 50 qof soo booqatay 50kaas qof 10 qof ka mid ah ayaa يعني حيسينتي كله فتى على قف وحكوها $1 بر $1 بر مركا $8 كله فنا وشيء $8 مالنتي وحيسين أهنا تكوها شيء $8 مركا بشي أكله فنا ما يقين خكرتا والعيد في عن أو دقلة أو بشي يعني كوكا بيسا برنامج هذا يهدف في ذكر هذه النورش أكل هذا هاي ويعني لعك مل يعني كاسو كليسو كليا نسيفود كوسو كليسو كلي wax laga baahan yahay waxa waaye inaad maalintii ama isbuuc waqti kamid aad u qoondeyso inaad website-kaada wax aad ku soo daawacdo si aad yani u yeelatid booqasho fiican Google Analytics waxa la jiro Google Analytics wuxuu qiimeynayaa maalintii imisa qof ayaa soo booqatay website-kaaga okay imisa qof ayaa soo booqatay website-kaaga soo marka taas ayaa ku saamaxaysa in Google AdSense uu si fudud ku aqbalo in يعني website-kaaga lagu soo bandhigo xayisiin qodobka labaad ee website aad lacag uga sameyn kartid ama blogin aad lacag uga sameyn kartid waa inaad mar allaala markii website-kaada uu noqdo website aan ay bulshada ay taqaano oo adigana bulshada dhexdeeda aad influencer ku tahay oo yani qof bulshada saameyn ku leh oo maanta hebel bulshada laga dhex yaqaano aqoonyahan hebel doctor hebel ganacsade hebel ma fahanti markii la dhahayo influencer tahay markaas bulshada saameyn ku leedahay soo marka shirkadaha ayaa waxa u sameynaysaa xayisiin qaabkee ugu sameynaysaa qaab ah in website-kaaga ugu soo daawacdid ka soo qaado kale dhakhtaraan ahay maanta caafimaad baan bixiyaa maqaalo caafimaad aan diyaariyaa waxaan dhahay noocaas daawadaas waa anfacle daawadaas waxaa ka helaysaa farmashi hebel isbitaal hebel ka helaysaa soo mar waliba oo asaas adiga ay noqoto يعني هذا waxaa heshay xayisiintaas adiga aad sameysay waxa ku helaysaa dakhli inkastoo taas ay badanaa Soomaalidu aysan aad u garaneyn oo aysan badanaa sameyn badanaa Soomaalidu ay ictimaado tan koowaad oo Google AdSense ah waa fursad sahlan oo aad ku shaqeysan karto oo dakhligaaga aad يعني ku kordhin karto waxaa rajeynayaa inaad wax badan aad ka faa'iiday la soco qeybaha xiga ee passive income ee taxanaha ah waa muuqaalo taxana aan ku hadlayno sida dakhli kala duwan aad ku sameyn karto fadlan waxaan ka codsanayaa channelka inaad subscribe ay saartid si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga